daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka wacyigelinta bulshada ee warbaahinta Somali Bridge. Toddobaadkan waxaan waraysi la yeelanay Dr. James Lewis oo ka mid ah dhakhaatiirta ka hawlgasha gobolka Washington, isla markaana ka mid ah waaxda caafimaadka dadweynaha ee degmada King County, Washington. I'll just start by saying thanks for having me. It's a pleasure to be here and I appreciate you inviting me. Dr. Lewis ayaan wax ka weydiinay xaaladihii u dambeeyay COVID-19 gaar ahaan tan degmada King County. We're firmly up there in the medium level. Weli waxaan ku jirnaa heerka dhexe ee COVID-19. Kiisaskuna weli way sii kordhayaan maalinba maalinta ka dambaysa. Inkastoo toddobaadkan aysan nambaradu waxba iska bedelin. Seems to be plateauing or kind of staying the same. Dhanka kale Dr. Lewis ayaa ka hadlay dadka isbitaalada la dhigo ee COVID-19. We're also seeing, a leveling off of the number of people who are in the hospital with COVID-19. Dr. Lewis ayaa waxa uu sheegay in sariiraha isbitaalada 7% ay u jiifaan dadka qaba COVID-19. Nambarkaas oo ah mid aad u sarreeya sida uu sheegay. Sidoo kale Dr. Lewis ayaa ka hadlay muhiimadda tallaalka COVID-19 isagoo u mahadceliyay dadka qaatay tallaalka COVID-19. Thank you for getting your primary series. Way ku mahadsan yihiin dadka qaatay qaybihii hore ee tallaalka COVID-19. Waayo waxay ka difaacayaan xanuunka COVID-19. balse difaacaasi hoos ayuu sii dhacaa. Fayraskana noocyo cusub ayaa markasta soo baxaya. Sidaa daraaddeed waa muhiim inaad qaadataa boosterka ama kobciyaha si difaacaagu u buuxsamo. Siiba dadka difaaca jirkooda hooseeyo ama immunocompromised loo yaqaano. Maraan wax ka weydiinay Dr. Lewis xaaladda noocyada cusub ee COVID-19 ayaa waxa uu yiri beginning of the year we had Omicron and that caused the largest surge in cases we kan ugu saameynta badan waxa uu ahaa Omicron oo soo baxay horraantii sanadkan. Waxaa ka dambeeyay B2 iyo dhowr nooc oo kasii farxamay Omicron, inkastoo aanay u awood badnayn sida Omicron. Hadda waxaa jira laba nooc oo cusub, B4 iyo B5 oo laga helay dalka South Africa. Bahda caafimaadkuna u diyaar garoobaysaa sidii ay ula tacaamuli lahayd. Ugu dambeyn, Dr. Lewis ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay baaritaanka COVID-19, khaasatan isagoo uu sheegay in loo dhibiireeyay dadka isla markaana isticmaali karaan xirmooyinka iska baarista ee loogu talagalay guryaha. We have worked to distribute a large number of the over-the-counter apps. Waxaanu bulshada la wadaagnay tiro badan oo xirmooyinka iska baarista COVID-19 ee guriga. Waxaadna ka heli kartaa goobo fara badan adigoo ka dalban kara hay'adda Somali Health Board oo ah hay'ad Soomaaliyeed u adeegta bulshada Soomaaliyeed. Haddii kale waxaad aadi kartaa goobaha ama xarumaha aan ugu talagalnay in la isku baaro waana bilaash.